بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم maantana waxaynu duubi doonaa insha allahu tacaala qeybteennii saddexaad ee ku saabsanayd barnaamijkii hogaaminta. Qeybtii koowaad waxaynu kaga soo hadalnay hordhaca iyo waxay tahay hogaamintu iyo sababaheeda. Qeybtii labaadna waxaynu kaga soo hadalnay allahuma salli calaa maxamed, waxyaabaha qofka hogaamiyaha ah looga baahan yahay hadday tahay ficilada ay tahay inuu sameeyo iyo qawaacidda ay tahay inuu raaco. maantana insha allahu tacaala waxaynu isku dayi doonaa haddii ilaahay inagu simo oo inoo fududeeyo bal inaynu qaybo kale galno oo ay ka mid yihiin xirfadaha looga baahan yahay qofka hogaamiyaha ah. wax kasta oo la qabto waxay u baahan yihiin xirfad loo adeegsado. xirfaduna had iyo jeeraale waxay aqoonta kaga duwan tahay iyadu wax practical ah oo mar walba la isticmaalo. hogaamintana sidii aynu sheegnay mar walba waxa weeye waa shay ah ficil ee aan ahayn hadal iyo cilmi la barto iyo faham iyo aqoontoona. qofka doonaya markaa inuu hogaamiye fiican noqdo ama hogaaminta fiican adeegsado, xirfadaha looga baahan yahay waxa ugu muhiimsan ama waxyaabaha ugu horeeya waxaa ka mid noqonaya waxa la yidhaahdo xidhiidh wanaagsanaanta. qofku haddii aanu xidhiidh lahayn, xidhiidhkiisuna wanaagsanayn, dadkana aanay isfahmi karin, ma noqon karo hogaamiye wanaagsan oo waxa weeye dadku ay ishordhigaan ama iska horeysiiyaan oo ay dhahdaan howlaha adigu nagu hogaami ama rabitaankooda ay ku raacaan. waana shayga ugu muhiimsan ee ibni aadamku kaga duwan yahay waxa kale ilaahay abuuray oo dhan, waa xidhiidhka. waayo xiriirkan ibni aadamku uu ka qoto dheer yahay xiriir kasta oo noolaha kale leeyahay. waa xiriir ku dhisan hadal, waa xiriir ku dhisan maskax, waa xiriir ku dhisan dareen, waa xiriir ku dhisan isfahamsiin iyo maxaa la yidhahdaa iswaafaqid, isku dayid in la iswaafaqo. haddii jeeraale ma dhacdo wax walba in la isku waafaqo ama wax walba in isku si loo fahmo ama meel la iska wada taago. laakiin communicationka ama xiriirku fiican wuxuu keenaa waxa la yidhaahdo in la isku dayi karo in mar walba la ilaaliyo maxaa la yidhaahdaa aaraada kala duwan iyadoo laga duulayo in la xaqiijiyo hadaf isku mid ah. waxyaabaha kale ee xirfadaha kale qofka hogaamiyaha looga baahan waxaa ka mid ah waxa la yidhaahdo inuu hadal xulasho leeyahay. communicationkay qayb ka tahay, laakiin communicationka iyo hadal xulashadu way kala duwan yihiin. waayo hadalka aad odhanayso, hadalladu way kala naxariis badan yihiin, way kala qiimo badan yihiin, way kala saameyn badan yihiin, way kala maxaa la yidhaahdaa raad duwan yihiin. marka hadalka aad xulanaysaa waa inuu yahay hadal ku habboon meesha oo aan keenaynin in maxaa la yidhaahdaa caqabadi ka timaado. waxyaabaha kale ee runtii xirfadaha kale looga baahan yahay qofka hogaamiyaha waxa weeye waxa soo mara inuu wax ka barto, waxa soo bara inuu wax ka barto, inaanay noqonin waxay ku dhacay intay mar ku dhaceen 100 jeeroo dambe inay kusoo noqdaan. nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi mu'minka 2 jeer god lagama wada qaniino. xaqiiq nolole qofka horumarka sameeya waa qofka casharadiisii hore, tallaabooyinkii hore u qaaday, wixii ku dhacay, wixii kala kulmay, wax ka barta. marka runtii markaynu ka hadlayno xirfadan waa xirfadaha ugu muhiimsan ee qofku ay tahay inuu sameeyo. lamana samayn karo haddaan qofku record lahayn, haddaanu qofku aqooninba wuxuu shalay sameeyey, maanta sameeyey, maalintii ku horeysay sameeyey, waxa weeye dee ma garan karaba xataa go'aamadii u qaatay. waana sababaha xitaa sharciyada laftooda markay dhismayaan ama xeerarka markay dhismayaan waxay ka dhismaan wax dhacay oo si loo qabtay oo dabadeedna la diiwaangeliyey oo layidhi wixii dambe ee la mid ahna sidaa aynu u qabanno. waxyaabaha kale ee looga baahan yahay ama xirfadaha kale looga baahan yahay hogaamiyaha waxaa ka mid ah waxa la yidhaahdo warcelinta. waxa weeye dad baad hogaaminaysaa, dad baad xog ka sugaysaa, dad baa xog ku siinaya, dad baad xog siinaysaa. mar walba waa inaad jawaab celintaadu ay tahay wax la socda waqtiga xilliga looga baahan lagaaga baahan lagaa helo, adigu aad ku dadaashay inaad hesho. waayo xog waxaa la odhan jiray tale la heliya war la heliyaaba tale la heli. marka mar kasta oo dadka aad hogaaminayso xidhiidh idin dhex maro waa inaad ku dadaasho
xiriirka inaad sida ugu fiican ama ugu habboon ama ugu munaasabsan ama waqtiga ugu maaragtay loogu jecel yahay inay helaan inaad ku dadaasho in la helo oo qofku aad falcelintaadu ay mar walba joogto noqoto. xirfadaha kale ee looga baahan yahay qofka hogaamiyaha waxaa ka mid ah inuu leeyahay aragti dheeraan, inuu leeyahay maxaa la yidhahdaa meel fog inuu eegayo oo uu leeyahay ka fakerayo dariiq dheer oo nololeed ama hayaan dheer uu hagayo. waayo qofka hogaamiyaha waxa looga baahan yahay waxa weeye inuu dadka u sheego meesha ku wado oo uu doonayo oo uu yidhaahdo halka aynu doonayno inaynu tagno muddada intaa la-eg waa halkaas. waayo halkaas aynu doonaynaa inaynu tagno kuma filla dadka. waxaa loo baahan yahay dadka in loo sheego halka la doonayo, loo qoro, la fahamsiiyo, lagu celceliyo, la horkaco, loo noqdo maxaa la yidhahdaa tusaale, laga dhigto maxaa la yidhahdaa shaqo aan la joogtaynayn, shaqo aan la joojinayn mar walba oo la joogtaynayo. marka runtii waxyaabaha aynu odhan karno dadkeena Soomaalida way ka dhiman yihiin waa kuwaas oo kale. waayo ma naqaano qof waliba waxa uu doonayo inuu gaaro iyo halka uu doonayo inuu soo taabto iyo halka uu hayaankiisa ku wado ee geediga uu ku rarayo keligii ayuunbay maskaxdiisa ku jirta. qof kale oo la wadaagaa ma jirto. wax aan lagula wadaagin ama aan lagula lahayn ama aan lagula ogeyna cid kula fulin karaysaa ma jirto. hogaamiyuhuna sida rasmiga ahayn hore usoo sheegnay dee keligii ma socdo, meelna ma gaadho, cidna meel ma gaarsiiyo haddii aanu garanaynin isagu meesha ku socdo, dadkana u sheegin, iyadoo qoran oo la isla fahmayo oo waxa weeye luuqad isku mid ah lagu qoray oo waxa weeye luuqad la isla garanayo oo la isla fahmi karo oo warkeedu cad yahay lagu qoray. marka runtii waxyaabaha u baahan in xoogga la saaro ee dadka hogaamiyaasha ay tahay inay xoogga saaraan bay ka mid tahay in la yeesho dariiq cad iyo jid xariiqasho cad oo loo socdo iyo meel la doonayo in lasoo taabto oo dadka kale ee aad hogaaminaysaan ay kula ogyihiin. waayo hadafka waa lagula leeyahay, hadafka keligaa ma lihid. hogaamintana sidaynu hore usoo sheegnay wax shakhsiya maaha oo qof keliya ku urursan oo wax maxaa la yidhaahdaa la wada leeyahay. qofka wax hogaaminaya wuxuu wax ku hogaaminayaa hadaf dadka ka dhexeeya, wuxuu ka hogaaminayaa wax ay iyagu leeyihiin, wuxuu ku hogaaminayaa wax iyaga dan u ah in ka badan intay isaga dan u yihiin. maxaa la yidhahdaa xirfadaha kale ee looga baahan yahay qofka hogaamiyaha waxa weeye waxa la yidhaahdo go'aan qaadashada wadarta ah ama go'aan qaadasho wadareed ayaa looga baahan yahay. waayo marka aad cid hogaaminayso, cidaad hogaaminayso waxa aad ku hogaaminayso waa inaad go'aan ka wada qaadataan. waa in qof waliba ku leeyahay maxaa la yidhaahdaa erey ku leeyahay. waa in qof waliba ka qayb qaatay fakerkeeda, waa inuu ka qayb qaatay meesha loo ka qayb qaatay waxa la doonayo, waa inuu ka qayb qaatay aragtida, waa inuu ka qayb qaatay dooda, waa inuu ka qayb qaatay fahamka, waa inuu ka qayb qaatay ereyada la xulanayo iyo waxa la dooranayo. marka waxa la yidhahdaa marka la qaadanayo go'aamo wadareedka marka la qaadanayo waa meelaha ugu badan ee caqabaduhu ka yimaadaan, dadkuna had iyo jeeraale isfahmi waagu ka dhasho. laakiin nin ku takhasusay cilmigan la yidhaahdo strategic leadershipka ayaa barnaamij uu leeyahay ayaa wuxuu ku soo ururiyey marka la doonayo Gregory North Scruff baa la yidhahdaa. marka wuxuu leeyahay 3 shay ayaa dila buu leeyahay habka go'aan wadareedka ama tallaabooyinka la qaadayo. 3 shay baa dila. 3daa shay haddii laga ilaaliyo go'aan wadareedkaasi wuxuu noqdaa go'aan aad u wanaagsan oo qiimo leh oo waxa weeye tayo leh. haddii 3daa shay xumaadaanna wuxuu leeyahay wuxuu noqdaa go'aankaasi go'aan aan tayo lahayn ee caqli qura ka soo baxay ama dadka lagu maxaa la yidhahdaa qasbay oo qof kaliya ku qasbay. wuxuu leeyahay 3da shay ee markaa processka go'aan qaadashada dilaa waxa weeye oo waxa la yidhaahdo yaa go'aanka qaadanaya isugu imanaya. marka waxa weeye haddii inta adiga aad isku fikirka tihiin aad u yeedho dee waxa weeye intii aad odhan lahayd unbay ku odhanayaan, adigu unbaanay ku maqranaysaa ku odhanayaan intaasaynu inoogu dhan tahay, waxa aad tidhi lagaaga daba dhufan maayo. marka macnaheedu waxa weeye allahumma salli calaa maxamed waxa la yidhaahdo in lagu dadaalo qofku inuu keeno cid kasta oo arrintani khusayso. taasi waa qodobka koobaad. qodobka labaad waxa weeye dadka meesha jooga
inay ka qayb qaataan go'aanka oo aan mid keliya meesha qabsanin oo gebigeedaba meeshaba la wareegin oo qof keliya hadlin laakiin qof walba aad fikirkiisa hesho waayo dadka aad isugu yeedhay meesha haddii mid keliya inuu hadlo inta kalena ay daawadayaal iyo dhegaystayaal noqdaan go'aankaa la qaatay dee qofkaa iyo adigunbaa qaatay qodobka u dambeeya ee ay tahay go'aan qaadashada in laga ilaaliyo waxa weeye in had iyo jeeraale dadka meesha ugu sarreeya ama ugu khibradda badani ay warka bilaabaan dabadeedna qolyaha ka yaryar ama ka khibradda yar ay tirahdaan iyagaa idinka khibrad badanoo wax walba oge bal u daayaya iyaga laakiin waxaa laga yaabaa fikirku inuu ku jiro qofka ugu da'da yar ama ugu aqoonta yar ama ugu taytalka hooseeya ama ugu maxaa la yidhahdaa da'da yar inuu ku jiro dabadeedna halka hoose in laga soo bilaabo marka runtii xirfadaha haddii qofka hogaamiyaha adeegsado waxaa soo bixi kara maxaa la yidhaahdaa midho fiican oo aan la filan karin xalqadda ku xigta inta isugu iman doono ama kulanka ku xigta isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu